salaamullaahi calaykum kusoo dhowaada sheeko qosol badan aadna u xigmad badan. waa arday da'yar oo maamulaha iskuulkiisa ku qasbay inuu ku laabto dugsiga hoose, balse intaynan u gudbin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka asxaabta kale u sheergaraysid. waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan. wiil yar ayaa weydiiyey macalimad wax barta hadhow xiisadda kadib haddii ay firaaqo tahay. wuxuu rabay inuu si gooni ah ula hadlo. waxay ku tiri haye. markii wakhtigii soo dhowaaday ayay ku tiri maxaa rabtay. wiilkii yaraa baa yidhi waxaan dareemayaa inaan fasalkan iyo anigu aanan isku heer ahayn. waxaan kaa codsanayaa ma ii awooddaa inaad igu dartid ardayda dhigata dugsiga sare. iyadoo loo tixgelinayo codsigii ayaa wiilkii yaraa loo diray maamulaha iskuulka, wuxuuna go'aamiyey in laga qaado ardayga imtixaan qiimeyn ah si aqoontiisa loo tijaabiyo. maamulihii baa weydiiyey 4 lagu dhuftay 3. wiilkii ayaa yidhi 12. maamulihii baa yidhi 5 lagu dhuftay 6. wiilkii baa ku jawaabay 30. maamulihii baa weydiiyey waxaad sheegtaa caasimadda waddanka Jabaan. wiilkii wuxuu yidhi Tokyo. maamulihii wuxuu su'aalaha weydiinayay ku dhowaad saacad, hal su'aal ahna ma uusan qaldin. kadib macalimadii baa codsatay bal inay iyaduna markeeda su'aalo weydiin karto. waxay tiri waxaad sheegtaa waa maxay waxa ay lo'du 4 ka leedahay anigana aan 2 ka leeyahay. maamulihii oo yaabay baa eegay macalimadii. wiilkii yaraa wuxuu ku jawaabay waa lugaha macalin. macalimadii waxay tiri sax weeye, waxaad sheegtaa surwaalkaaga wax laga helayo aan kayga laga helayn. maamulihii baa xishooday oo wejiga kaduuday. wiilkii waa jeebka ayuu yidhi. waxaan filayaa inaad adigana yaabtay daawade, bal aan inoo sii wado su'aalaha yaabka leh ee ay macalimaddu weydiinayso iyo habka uga jawaabaya wiilkan cajiibka ah. macalimadii waxay weydiisay markan xaggee laga helaa timaha adag ee leeyihiin dumarka. maamulihii afkuu kala taagay. wiilkii baa ku jawaabay Afrika. macalimadii waxay tiri waa maxay waxa jilicsan ee ku adkaada gacmaha dumarka. wadnaha istaagi gaaray maamulihii. wiilkii wuxuu ku jawaabay waa nailboolishka dumarka cidiyaha marsadaan. macalimadii waxay weydiisay maxaa laga dhex helaa dumar iyo ragba bartamaha lugahooda. maamulihii ama kaag baa ka soo haray. wiilkii waa jilbaha ayuu yidhi. macalimadii waxay tiri bravo, waxaad sheegtaa waxa ay leedahay naagta la qabo kaasoo ka weynkan gabadha aan la guursanin. maamulihii wuu qaboobay. wiilkii wuxuu ku jawaabay waa sariirta. macalimadii waxay tiri sheeg meesha jirkayga ka midka ah oo aadka u qoyan hadda. maamulihii cirkuu eegay yaxyax dartiis. wiilkii yaraa wuxuu yidhi macalin waa carabka. kadib maamulihii baa hadalka qaatay wuxuuna yidhi nacallaa fikirkayga xun ku taalle, adiga jaamacad baan ku geynayaa, anigana dugsi hoose baan ku laabanayaa. haddaba saaxiibayaal, waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka ka bogateen. malada xun waa wax laga fiican yahay. qofka rajeeya waxyaabaha xun wuxuu saldhigtaa xaalad laga qurux badan yahay. muuqaalkan waa wacyigelin. waxaa laga yaabaa inay asxaabta ka helaan kana faa'iidaystaan. inoo sheer gareeya.